بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa sahan academy hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha wali waxaan ku gudi jirnaa course aynu ugu magac darnay biology oo markaasi ah course aynu ku baranayno maadada biology gaar ahaan fasalka form 4 waxaan maraynaa lesson 45 oo markaasi ah casharka 45aad casharkana waxaynu kaga hadli doonaa waa law of independent assortment waxa la yiraahdo ama heerka nooca madaxa banaan marka la joogo genetics ayaan casharkan ku baran doonaa waxaan filaa 44 cashar inuu hore u soo daawanay si fiican loo fahmay hadii ay jiraan su'aalo ku saabsan 44 kaas casharna waad inoo soo weydiin kartaa WhatsApp nagala soo hadli kartaa ama email aad inoo soo diri kartaa adigoo emailkaaga ama fariintaada cinwaan uga dhigayo qaybta aad rabto inaad su'aal weydiiso sidoo kale waxaan filaa talooyinka aan ka jeediyay muuqaaladii hore ee 44 ka ahaan in la qaatay ama hadii kadib la qaadan doono taa oo ku saabsanayd in cilmigan waxyaabo badan oo ku saabsan in markaasi la raadiyo in gudaha marka course waa biology aynu ku baranayno fasalka form 4 lesson 45 waa casharka 45aad waa law of independent assortment way marka hore fikrad guud aynu ka qaadano waxa la yiraahdo law of independent assortment waxa la yiri Mendel ninka lagu magacaabo waa Gregor Mendel oo ninkii Austrianka ahaa father of genetics isaga begin wuxuu bilaabay his experiments tijaabooyinkiisii waxa uu ku bilaabay to study inuu darso the inheritance kala dhaxlida of two or more traits labo sifo ama laba sifo wax ka badan sida markaasi loo dhaxlo ayuu markaasi darsay together si wada jir ah macnaha waxa weeye ninka lagu magacaabo Gregor Mendel waxa uu bilaabay in tijaabooyinkiisii yani uu diraaso uu ku sameeyo diraasadaas oo ku saabsan sida la isugu dhaxlo laba sifo ama sifooyin oo laba sifo wax ka badan si wada jir ah sida la isugu dhaxlo ayuu diraaso ku sameeyay and that's the inheritance iyo sidoo kale dhaxlida markaasi of one trait hal sifo affect inay saameyn ku leedahay the other traits waxa waaye sifada kale inay saameyn ku leedahay ayuu sidoo kale diraaso ku sameeyay way ninka lagu magacaabo Gregor Mendel marka isaga waxa uu crosset uu isku talaalay plants ayuu cross ku sameeyay uu isku talaalay that different kuwaas markaas ku kala duwan in two characteristics labo astaan ku kala duwan yani labo astaan markaas kuwa leh oo dhir markaas leh astaamo kala duwan leh ayuu crosset ku sameeyay uu isku talaalay sida waxa uu sameeyay flower color seed color ayuu markaas ku talaalay yani waxa way midab oo markaas ubaxa laga soo saaray ayaa wuxuu ka talaalay meesha markaas iniinta ama seedka ayuu markaas ku talaalay yani waxa way taasina hadafkiisa wuxuu ahaa tijaabo in markaas uu soo saaro data marka xogta from this more complex crosses yani waxa way waxyaabahan uu isaga isku talaalay uu isaga isku xiray daatada ama xogta showbid waxay muujisay that traits in markaas sifooyinka produced by ay soo saareen dominant factors isiro kala duwan do not necessarily aysan ahayn kuwa markaas laga maarmaan ah inay markaas abiir ay muuqdaan together si wada jir ah inay kubi ay soo muuqdaan mid markaas laga maarmaan aan ahayn ay markaas ay noqotay waxa la yiri a green seed bot oo markaas ah nooc oo markaas iniin oo cagaaran ayaa produced waxay soo saartay maxay dominant factor ay soo saartay isiro dominant ah oo yaani astaantii hore wadato way ku abiir waxayna u soo muuqan doontaa maxay ama ay ka soo muuqan doontaa in a white flowering bee plant dhir ama digir markaasi dhirta kamid ah oo hadana white flowering ah wax leeyda gaar ahaan qaybta cadaanka ah Mendel marka ninka lagu magacaabo concluded wuxuu ku soo gabagabay that the factors in isirada for individual characteristics ay leeyihiin yani astaamo gaar ah oo nooleyaashan ama dhirtan ay leedahay are not connected aysan ahayn kuwa markaasi isla xiriiray aysan ahayn ayuu markaasi ku soo gabagabay recall wuxuu markaasi dib u xasuuso ayuu ku dhahay that the random separation kala soocida randomka ah ee cashwaa'iga ah ama mala awaalka ah ee lagu sameeynayo maxay homologous chromosomes lagu sameeynayo chromosomes isla lagu sameeynayo in iskoolad lagu magacaabo independent assortment lagu magacaabo yani noocyo madax banaan in markaasi ayagu ay yihiin waxa la yiri low independent assortment marka laga hadlayo nooca madax banaan ama xeerka nooca madax banaan
isaga status wuxuu sheegayaa that 2 or more genes assort yani noocyo genes ah oo firsadayaal ah oo labo ama labo wax ka badan ah ay noqonayaan independently kuwa si madax banaan u shaqeynayo that is each pair kaasoo joog waliba uu leeyahay ama joog waliba oo kamid ah of alleles allele waxa la yiraahdaa labada xarfood ee wada socota ayaa alleles lagu magacaabo segregate tusaale bb oo kale waa alleles way marka segregate independently waxay noqonayaan kuwa ka madax banaan of any other pair of alleles alleleska kale ama xarfaha kale waxay ka noqonayaan kuwa ka madax banaan goorma during gamete formation marka gamete-ka ama shahwada ay markaasi sameysmayso waxa la yiri the law of independent assortment xeerka nooca madaxa banaan also applies sidoo kale waxa uu xaqiijinayaa to the inheritance kala dhaxlinta la kala dhaxlayo of 2 or of 3 or more characteristics saddex astaan ama saddex astaan wax ka badan in la kala dhaxlayo iyo sidoo kale xaqiijiyo each characteristic marka dabeecad waliba ama astaan waliba being independent waxay noqonaysaa mid ka madax banaan from the other characteristics astaamaha kale ama dabeecadaha kale kuwa ka madax banaan ay markaas noqonayaan the use of Punnett square marka in la isticmaalo Punnett square waa sanduuq afar god ka kooban horaan u soo qaadanay Punnett square in la isticmaalo to solve si loo xaliyo these problems dhibaatooyinka will be complicated waxay noqonayaan kuwa markaasi complicated ah oo dhibaatada markaasi ka sii daraysa ay noqonayaan because waxa yiri in this case marka la joogo xaaladan will need waxa loo baahan yahay 64 squares ay loo baahan 64 markaasi square ayaa loo baahan yahay for members waxana looga baahan yahay xubnaha oo second generation ah jiilka markaasi ku xiga ah waxaan filayaa markan casharkan wax badan laga fahmay markan waxaan aadeynaa question is markaasi aswala casharka su'aasha waxa la yiri what Mendel crossed ninka lagu magacaabo Mendel muxuu isku talaalay macna muxuu talaalid uu isku sameeyay su'aasha labaad waxa la yiri what Mendel concluded his crossing muxuu ninka lagu magacaabo Gregor Mendel uu ku soo gabagabeeyay crossing-ka isaga uu markaasi isku sameeyay su'aasha saddexaad waxa la yiri what the law of independent assortment status law of independent assortment marka laga hadlayo muxuu sheegaa isaga su'aasha afraad waxa la yiri the law of independent assortment applies what muxuu xaqiijiyaa law of independent assortment marka laga hadlayo why we use Punnett square maxaan u isticmaalnaa Punnett square oo markaas yaa sanduuqa ama godka markaas afarta qaybood ka kooban waxaan filayaa markan casharkan si fiican loo fahmay intaynu ku soo gabagabeynayna casharkan intaynu ku kulmi doono casharka xigana waxaan idin kaga tagaynaa sida nabadiino wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh